Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta golaha cusub ee wasiirada ee uu magacaabay horgeeyay golaha shacabka Soomaaliya si ay u ansixiyaan golahaasi. Sidoo kale waxa uu ka hadlay qorshe hawleedka xukuumaddiisa fadhiga oo ay ku sugnaayeen xildhibaano gaadhaya 188 mudane ayaa waxa ugu horeynay dhageysteen hadalka uu jeediyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay ugu horeyna ka hadlay in xukuumaddiisu ay wax ka qaban doonto dhinacyada ammaanka, doorashada, xuquuqda aadamaha, musuqmaasuqa, fatahaadaha, xanuunka coronavirus iyo qodobo kale. Intaasi kadib golaha shacabka ayaa cod u qaaday isla markaana ansixiyay golaha wasiirada cusub ee uu soo dhisay Ra'iisul Wasaare Roble, waxaana ku dhawaaqay go'aanka golahu uu ku ansixiyay wasiirada gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursi Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu yidhi ogol u coday 188 xildhibaan sidaas ay shacabka tahay xildhibaanada golaha shacabka iyo xubnaha golaha wasiirada waa idin salaamaya insha Allah taala waxaynu u gudbaynaa dhaarta dastuuriga ah ee uu jideeyay qodobka 104 ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan akhrin doonaa dhaartu sida ay ugu qoran tahay qodobka, waxaana diga daba odhan doontaan dhaartaas aan akhrin doono isagoo qof walba kitaabka hortiisa yaala gacanta saari doono insha Allah. waxaan bilaabaynaa dhaartii. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si dalka dadka iyo diintu ku jirto, dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. Intaasi kadib Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mr. Roble ayaa golaha uga mahadnaqay sida ay u ansixiyeen xukuumaddiisa, waxaana uu yidhi guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinkaga mahad celinayaa kalsoonidii buuxda ee aad siiseen golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda. waxaan rabaa halkaan inaan ku xuso kalsoonidii ay siiseen kalfadhigii kan ka horreeyay ee ra'iisul wasaarenimada inaad ii siiseen si buuxda aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin. maantana sidoo kale ayaan idinkaga mahad celinayaa sida buuxda aad u taageerteen. inkastoo uu dalku galay xilli doorasho, haddana golaha wasiirada cusub waxaa hor yaalla dardargelinta howlaha wasaaradaha iyo kamari dhalinta barnaamijka xukuumadda. waxaan eebba uga baryayaa subxaanahu wa tacaala in uu fududeeyo gudashada howlahooda. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan hortiina kula dardaarmayaa golaha wasiirada inay ka dhabeeyaan xaqiijiyaan hanka ummadda Soomaaliyeed u qabaan dowladda ku shaqaysa sarreynta sharciga, kana turjumaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. ugu dambeyn, waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay'adaha dowladda guud ahaan, gaar ahaanna kuwa amniga. sidoo kale waxaan ka codsanayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay si degdeg ah u soo dhammaystiraan soo gudbintii xubnaha u matalayay guddiyada doorashooyinka ilaaliyaana qoondada haweenka. meel kastoo Soomaaliya joogto oo ay ka soo wacayeen dumarka Soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoondooyinka haweenka Soomaaliyeed. waad mahadsantihiin, wabilaahi tawfiiq.